gudoomiyaha xisbiga cid injineer Faisal Cali Waraab oo ku sugan magaalada Burco ayaa kormeerin dheendheena wuxuu ku tagay goobaha laga qaadanayo kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland halkaas bulshada qaybahooda kala duwan safaf dhaadheer ay ugu jiraan mas'uuliyiintani markay kormeerkooda soo dhameysteen waxay warbaahinta kula hadleen xarunta Sooyaal oo kamid ah goobaha kaarka codbixinta laga qaadanayo waxaana fariin u direen bulshada gobolka Togdheer inay qaataan kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland. الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي مهد سبحانه وتعالى إلهي أنا بدي نسيه مهد سبحانه وتعالى دوا إذا شيكتي يا كوميشنر كلتون حولها دب لو وفري ما هو واحد في عن إلى الكفة ستان وعركتان وصدق حسبه والسودان والدورشة هوريسين دواجلين هوريسين صدق حسبه يسوي الشر ولا شقين أيام waxaana wax lagu noqon kara waxa weeye waa midnimadaas iyo wada shaqayntaas wax lagu noqon kara maanta wada ogtii waxa ka taagan adduunka geeska waliba aan maanta ku noolahay wada ogtii maanta Muqdisho waxa ka jira xabada afku maana ka bixin marka doorashadu mar bay leedahay negative side of waxa democracy mar bay leedahay foolxumo marka qof aan meesha u heleen la doorto dhibaatadaas ay leedahay waxaan doonaynaa inay insha Allah taala diiwaangelintana Burco deewa bariga horena 40 kubaanad qaadan oo kaarbeydin yaalay 40 kuna waxa dadkeeda barigii aan qaadan ha soo qaateen ismuujiya waxa leeyahay ku haysta magaalada labaad ee qaranka waa ku haysta boorama la tartamise ismuujiya hadii kale deewa tasdaxad ma noqon doontaa hada ismuujin weyda taasi waa mid waxaana inoo ah balan doorashada gelina insha Allah taala doorashada si khayr bay nagu dhamaanaysaa madaxweynuhu waa ka go'an tahay erana way ka go'an tahay ana hore iga go'oneen marka doon bay waa fuushanahay laakiin waxa shuruud waxa weeye inaynu dad wanaagsan oo Ilaahay garanaya oo amaanada garanaya inaynu doorana farbay naga gudan waxa leeyahay war dadkan magaalooyinkeedii aan xashiish ka guri kari waayay qaran ma wada karayaan baa leeyahay waxaan doonaynaa inaan dad fiican baarlamaanka deegaanka dad wanaagsan oo Ilaahay oo xilkasa maanta ku kala doorta qabiilka ku kala dooranayna hadda aragtaanka reerkiina ka socdo inuu ka socdo ka reerka kale kaasi codka daalayna habluhuna waa doorkan habla siiyo ragii waan ku khasaarnay badankoodii xagga hablaha wayna hablaha la siiyaa hadaa la yiraahdo chance la siiyaa hablaha hadaa la yiraahdo wayna noqonaa doorasho loo wada dhan yahay iyo baarlamaan loo dhan yahay iyo deegaan loo dhan yahay waa inuu yeelanaa markaas inuu la oran doono Soomaaliya waa loo wada dhan yahay iyo dadka waliba minority-gana iyagana hala siiyo codka waa leeyahay minority-ga markaasina wax wada yeelan karnaa markaas cadaaladu ay sax noqon doontaa Ilaahay cadaaladna sameeyo subhanahu wa ta'ala Ilaahay cadaaladna siiyo nabadiina ilaashada nabad wax lagu noqon karaa nabad ayaa lagu noqon karaa wixii kulba inaga waxaan hagaagsan doonaa waxaynu haysanaa aan ku mitidno insha Allah ta'ala dawana mahadsantii Burco iyo wadkaas barway ka baxda waa bakeela qanaan Cabdi Qani Baaf telefishinka Star magaalada Burco.